nabad dadweyne soo dhawaada dhambal dhigta ama haddaad doontaan gambarkiinaba soo qaata. waa biladay ha lagu sheego ama ha laguu sheege maantana waa ha laguu sheego. marka aad maqasho cagaaran iyo ceel jaalle maxaa maankaaga ku soo dhaca? labadii qof ee iscaashaqa ee la isku diido ama ka baqaya in la isku diidayo oo malaha aan awoodin yaradda ama ka baqaya in beela ahaan la isugu diido ama si u baqaya ayaa waxay iskula baxsan jireen masaafo oo dhaqanka Soomaaliyeed baryo hore aad looga yaqiin. waalidiin badanna ay isku xalaaleysteen ayaa waxa ay iskula baxsan jireen goobo ku caan ahaa masaafada sida cagaaran iyo ceel jaalle gobolka Shabeellaha Hoose. culimada suufiyada ayaa iyagu baneeyay oo aan ka hor imaan jirin marba haddii halka la isku masaafeystay ay 90 kiiloomitir u jirto halka ay waalidka gabadha dhalay ku nool yihiin ama ay waalidku ku maqan yihiin meel fog. hase yeeshee waayo dambe oo ay wadaadada macangaga ah ay diidmo qayaxan kaga hor yimaadeen masaafada ayaa waxaa soo baxay kaftan ahaa Soomaalida intooda badan baaba ku dhashay masaafe marka ma waxaa la leeyahay intaas oo dad ah guurkooda waxba kama jirin. inkastoo marmar la isku qabsan jiray inay bannaan tahay masaafada iyo in kale haddana waxay ahayd soo jireen welina waa ay sii jirtaa. masaafada walow ay lahayd welina leedahay dhan taban oo daran oo waxaa dhici jirtay in gabadh iyo wiil ismasaafeystay oo wiilku been sheegay oo uu raacay mahmaahdii guracneed ee ahayd been ku xirogeli runna ku dhaq oo uu geeyo gabadha meel aan u qalmin ama se kaba sii darani haddii ay awlaad ka beermaan uu inkiro cidlana kaga dhaqaaqo gabadhii oo silacsan oo aan wadan waraaqa caddeyn u ah meherka. maxaa yeelay masaafada oo aan la iska soo siinba dokumenti caddeyn ah waalidkuna hiil u noqon waayo gabadha dhiban. marka laga hadlayo masaafada amba qudbasirada ha ahaato mid meel fog la isla tegay amba se waalidka oo meel fog ku maqan waa tii ay ahayd sheekadii Shabeel Naagood. shabeelka oo faduulinaya gabadhii iyaduna ay iska daacad tahayoo markuu jacayl dharbaaxa ku dhufto mid waa ku arkay oo waa ku caashiqay ah ay leedahay alla aabahay guuleed cawaalow war ma aniga kan shalaaya ah. shabeelka oo halkaas ka helay magaceeda iyo kii aabaheed iyo awowgeedba ayaa ka faa'iideysanaya markaas ayuu leeyahay qof kale la hadli maayo. waata ku leh maadaaba i yaqaan hooyaday shamada liibaane markaasuu leeyahay haddama waxaa i leedahay imaba taqaanid markaasay leedahay ima garanaysid markaasuu u sheegayaa magaceeda ee kan aabaheed iyo hooyadeed markaasay leedahay acuudu billaahi mina shaydaani rajiim. maxaad ahayd way ilowday inay iyada sheegtay. sheeko halkaas ka bilaabatay ayaa ku dhammaanaysa inuu ku inkiro uur. xasan sheekh muumin oo ahaa abwaanka riwaayadda Shabeel Naagood lahaa ayaa si fiican uga tarjumayay qudbasirada amba masaafada dhinaceeda taban iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo. ma aha masaafadu mid iyada si guud u wada xun ama si guud u wada wanaagsan hase yeeshee waxay u baahan tahay in
dhaqan ahaan la ogaado jiritaankeedii, haddana labada dhinacba laga gorfeeyo oo la ogaado qaybaheeda kala duwan iyo faa'iido iyo khasaaro ama dhankeeda togan iyo kan tabanba.